السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمها بدن وسلامتين ملك استود دنو دافيد كجوكتان كسور دوادا برنامج كينا أخبارات كفلام توركو قدام بي انت بدن برنامج كينا مانتو حانكو لفقر الدونا دنكاس يكون فرندي قاسة حرونت لو يقانا تولود ماداما مانتو صبح فيلم عصب صدو كلا داوداش قيمها بدن فانك لو يقانا تولود حرونتود ايتا هي دربات برواقي ورحلك اجرا ماداما جمعة والبتياتر أفلام عصبا من فيلم عصبا يسو كرايان fadlan data markii kuugu wareey channelkeena soo boqonayso waxaan ka codsanayaa inaad subscribe noo saarto sidoo kale ha ilowina muuqaalkan like inoo saarto aan ku bilaawno qodobkeena koowaad daawadayaasha qiimaha badan maanta waxaa tiyaatarada gudaha Hindiya qaasatan dhankaas iyo Telugu la saaray filimka lagu magacaabo Natya maxaa isla fiirin doonaa sheekada filimkan uu xambaarsan yahay asxaabta qiimaha badan filimkan waxaa hogaamisay sidoo kale producer ama qarqaraynaysa gabadha lagu magacaabo Sanya Raju sidoo kale waxaa ku jiro jilaag lagu magacaabo Rohit Bihal sidoo kale waxaa ku jiro ninka lagu magacaabo Kamal Kamaraju sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa director ka ninka lagu magacaabo Revand waxaan isla fiirin doonaa markaan concept guud ka bixin doonaa sheekada uu xambaarsan yahay filimkan maadaama maanta tiyaatarada gudaha Hindiya la soo saaray filimkan daawadayaasha qiimaha badan gabadha lagu magacaabo Sanya ayaa hogaamisa ka sidoo kale filimkan waxay ku jilaysaa magaca Sitara sidoo kale waa gabar inta badan koryoonaysa sidoo kale mar uun rajeynaysa tuulada ay ka soo jeed inay ku qabato barnaamij bandhig faneed sidoo kale oo dansiga sidoo kale waxay jeceshahay inay qabato barnaamijka loo yaqaan kan dambaari sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxa ka soo horjeesanayaan gabadhan tuulada ay ku nooshahay dadka kula nool sidoo kale deegaanka ayaa gabadhan ku kacay sidoo kale waxa lagu qasbaa meesha ay degan tahay deegaankeeda ku dhalat in laga soo musaafiray sidoo kale waxa ka shaqeynaa barnaamijkaas ninka lagu magacaabo Kamal Kamaraju sidoo kale filimkan ku jira magaca Rahul filimkan waxaa loo daawanaa daawadayaasha qiimaha badan maxaa loogu qasbay gabadhan lagu magacaabo Sitara oo loogu soo saaray tuulada ay degan sidoo kale ma rumayn doontaa riyadeeda mar uun inay ku qabato bandhig loo yaqaan daawadayaasha qiimaha badan kadambaari sidoo kale gabadhan waa inta badan waxay jeceshahay inay riyadeeda rumayso sida daraadeed filimkan waxaa loo daawan doonaa gabadhan sababta loo soo musaafiray sidoo kale riyadeeda barnaamijka ay jeceshahay inay qabato ma qaban doontaa haddaba maxaa laga yaray bandhiga jilayaasha daawadayaasha qiimaha badan inaba caadi maahan gabadhan kaalinta ay qaadatay sidoo kale bandhiga filimka ay ka sameynayso waa classic sidoo kale daawadayaasha qiimaha backgroundka music oo gadaalka yeeraysa ayadana cajaa'ibkeeda ay wadataa sida daraadeed filimkan iyo maalintiisa kooda wuxuu la imaado iyo ganacsi ugu sameeya barnaamijyadeena dambe ay ku ogaan doontaa bal markaan halkaas aan kaga gudubno qodobkan daawadayaasha qiimaha badan waxaan qodob idinka haynaa wiilka dhalanteera lagu magacaabo Nagashoriya sidoo kale filimkiisa waxaa la siiyay shahaado lagu daawan lahaa maadaama dhamaadka bishan tiyaatarada filimkan la soo saari doono daawadayaasha qiimaha badan wiilkan dhalanteera ee lagu magacaabo Nagashoriya gabadha lagu magacaabo Rito Farma waxay hogaamiyaal ka yihiin filimka lagu magacaabo Faraduka Falanu sidoo kale filimkan wuxuu soo bixi doonaa bisha aan ku jirno 29 Oktoobar sida daraadeed filimka maanta waxaa la horgeeyay guddiga inta badan aflaamta Jansore sidoo kale filimkan guddiga waxay siiyeen shahaado loo yaqaan US certificate oo laga soo gaabay Universal Adult Certificate sidoo kale daawadayaasha qiimaha shahaadada waxay u dhigantaa qof walba da'diisa ay ka weyn tahay 12 sano ayaa filimkan daawan kara sidoo kale qofka da'diisa ka yar tahay 12 sano marka filimkan tiyaatarada ka daawanayo waxaa qasab ah qof waalid ama qof mas'uul ka ah inuu la socdo sida daraadeed filimkan lagu magacaabo Faraduka Falanu maanta waxaa la siiyay shahaado loo yaqaan US certificate sidoo kale meel ku qorto filimkan waxaa la daawan doonaa dhamaadka bishan ku jirno ayaa tiyaatarada gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka la soo saari doonaa bal markaan asxaabta qiimaha badan aan soo qaadana aflaamta tiyaatarada gudaha Hindiya saaran sidoo kale filimka lagu magacaabo Most Eligible Bachelor wuxuu dhameystay hal toddobaad oo tiyaatarada gudaha Hindiya saareen waxaan fiirin doonaa filimkan ganacsi uu sameeyay sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimka maanta Jimcaha waxa uu bilaabantay week 2giis maadaama Jimcihii hore tiyaatar la saaray wuxuu dhameystirtay hal toddobaad sida daraadeed filimkan waxa hogaamiyay ka wiilka lagu magacaabo Aqlaqeen sidoo kale waxa kula jirta gabadha quruxleeda lagu magacaabo Pooja Hajim waxaa isla fiirin doonaa filimkan darajada labaad uu gudbay Super Hit iyo toddobada maalmood lacagaha uu soo xareeyay asxaabta qiimaha badan filimkan maalintiisa wuxuu soo xiray lacag gaaraysa 55 lag sidoo kale qolayaha xajradaha filimkan waxay ka heleen macaash gaaray 36 lag sidoo kale daawadayaasha qiimaha filimkan gudaha Hindiya wuxuu ka soo xiray 7 maalmood lacag gaaraysa 29.40 karoor sidoo kale qolayaha xajradaha waxay ka heleen lacag gaaray 17.85 karoor sidoo kale marka xogta Ambelar wax loo yaqaan World Board Gross aan ka dhigna filimkan lacagaha dibadda iyo dalka uu soo xiray marka la isku daro waxay gaaraysaa 35.70 karoor sidoo kale qolayaha xajradaha filimkan waxay ka heleen macaash gaaray 21.45 karoor sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan marka hore qoliyaha xajradaha qayb filimkan waxay ku iibsadeen lacag gaarayso 18 karoor iyo barsida daraadeed filimkan darajadii hiddu ka dalaacay wuxuu u dalaacay darajada Super Hit sidoo kale qoliyaha xajradaha qayb filimkan waxay ka heleen macaash gaarayo 2.45 karoor sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan hadii filimkan uu ganacsigiisa toddobaadka labaad u sicilay sidoo kale waxa huwaala la leeyahay filimkan wuxuu noqon doonaa blockbuster maadaama hadda u dalaacay darajada Super Hit
sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaa hal toddobaad saaran tiyaatarada hal toddobaad dhamaystay filimka lagu magacaabo Beli Sandado hogaamiye ka yahay wiilka dhalinteere lagu magacaabo Roshan. asxaabta qiimaha badan filimkan waxa laga filayo wuxuu la imaado waa kaaf kala dheer maadaama filimka inta badan ay ka heleen qoysaskii dadka dhalinyarada ayaa filimkan aad u xiiseynaya. waxaan fiirin doonaa filimkan maalintiisa toddobaad lacag uu soo xareeyay. filimkan wuxuu soo xareeyay lacag gaaraysa 38 lag. sidoo kale qolyaha cajaladaha qeyb filimkan waxay ka heleen lacag gaaraysa 24 lag. filimkan asxaabta qiimaha badan lagu magacaabo Beli Sandado todoba maalmood wuxuu soo xareeyay lacag gaaraysa 8.8 karoor oo gudaha Hindiya. sidoo kale qolyaha cajaladaha qeyb filimkan waxay ka heleen macaash gaaraya 5.36 lag. sidoo kale 5.36 karoor ay ka heleen. sidoo kale markaan xogta ambalaarn waxa loo yaqaan World Award Grossan ka dhigan dibadda lacagaha uu soo xareeyay filimkan marka la isku daro filimkan wuxuu soo xareeyay 7 maalmood lacag gaaraysa 9.40 karoor. sidoo kale qolyaha cajaladaha qeyb filimkan waxay ka heleen macaash gaaraya 5.65 karoor. sidoo kale ogaada asxaabta qiimaha badan filimkan marka hore qolyaha cajaladaha qeyb filimkan waxay ku iibsadeen lacag gaaraysa 5.5 karoor. sidaa daraadeed filimkan soo hid dhameystir u noqdo waxa qasab inuu soo xareeyay lacag gaaraysa 6 karoor. sidaa daraadeed darajadaas hid waxa kaaga dhimantaa filimkan inuu soo xareeyay lacag gaaraysa 35 lag. sidaa daraadeed maanta oo jimcaha toddobaadkiisa labaad ay ugu bilaabatay. sidoo kale waxa lagu shartamaa filimka inuu noqon doono hid dhameystir. sidaa daraadeed ganacsiga uu sameeyay barnaamijyadan dambe ay ku ogaan doontaa. laakiin hadda filimkan in hid dhameystir noqdo waxa kaaga dhiman kaliya 35 lag ayaa ugu dhiman. daawadayaasha qiimaha badan waxaan qodob idin ka haynaa ninka inta badan 40 sano ku dhawaad iska maamulanaya fanka loo yaqaan Toladu xaruntooda ay tahay darbaad qof kale maana qofkan ka hadlayo waa ninka lagu magacaabo Jaran Jeefi. daawadayaasha qiimaha badan Jaran Jeefi wuxuu gaaray darajada ugu sareysa jalaa walba gaari kara taasoo ah mega star. sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan hadda waxa shaaca laga qaaday Jaran Jeefi inuu kasoo farxaysto dubista filimka weyn lagu magacaabo Ajarya. sidoo kale filimkaas waxa lamaantiis ku matalaysa atrishada caanka la wada yaqaan qof kale maana Kajal Agrawal ayaa lamaantiis ku matalay. sidoo kale filimkaas waxa door muhiim ah ku leh wiilkiisa lagu magacaabo Mega Power Star Ram Jaran. sidoo kale waxa kula jirto atrishada Buja Haji. sida daraadeed official daawadayaasha qiimaha badan Jaran Jeefi wuxuu kasoo farxaystay filimka Ajarya. sidoo kale filimkan waxa la daawan doonaa 4 Febraayo 2022. sheekada marka halkaas maraysa daawadayaasha qiimaha badan ninkan wuxuu duubis ku bilaabi doonaa filimka kala weyn ee lagu magacaabo waa filimka lagu magacaabo daawadayaasha qiimaha badan Vola Shankar. sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Vola Shankar shaqadiisu waxay bilaaban doontaa 11 November 2021 bisha dambe 11keeda ayuu duubis ku bilaabi doonaa. sidoo kale filimkaas waxa kula jirta gabar lagu magacaabo Kriti Suresh oo walaashiis ku matalaysa. sheekada markaas halkaas ay maraysa daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale Jaran Jeefi wuxuu hadda duubiskooda filimka kala weyn ee lagu magacaabo Godfather. sidoo kale hadda waxa la xaqiijiyay filimka wali aan si official loogu dhawaaqay inuu asna duubis ku bilaabi doono taasoo ka dhigan daawadayaasha qiimaha badan Jaran Jeefi farqihiisu waa buuxaan. sidoo kale ninkan inka wuxuu ku dhow yahay da'da 70 ayuu ku dhow yahay. sidoo kale wali calinkiisu u dhici laaya maadaama ninkan awoodiisa iyo tamartiisa ay taagan tahay. sidaa daraadeed waa nin ay aad u jecel yihiin reer koonfur Hindiya qaasatan fanka loo yaqaan Toladu xaruntooda ay tahay Hyderabad. sidaa daraadeed waa official mega starkan wuxuu soo gabagabay duubista filimka Ajarya. haddana wuxuu ku mashquulsan yahay aflaamtii kala ah filimka hadda wuxuu duubiskooda Godfather. sidoo kale bisha nagu soo fadlay wuxuu duubis ku bilaabi doonaa filimka lagu magacaabo Vola Shankar. sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan Jaran Jeefi waxaan dhihi karnaa waxa ka go'an waa shaqo. waxaa halkaas inagu dhan daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena akhbaaraadka aflaamta wararka ugu dambeeyay. fadlan qodobada barnaamijka aan ku soo qaadanay qodobka ku soo jiita aragtida comment nagu reeb. sidoo kale hadda ka mid tahay saaxiibada hore noola jooga waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan share inoo dhahdo. sidoo kale hadda channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar muuqaalkan. sidoo kale yaa ilowina saaxiibta qiimaha badan in muuqaalkan like la saaro. sidoo kale aragtidaada comment nagu reeb. intaan barnaamij la mid ah ku kulmayna daawadayaasha qiimaha badan sidaas iyo amaano Allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.